munaasabadan lagu doortay gudoomiyaha sportska ee Soomaalida Kenya ayaa waxay ka dhacday magaalo xeebeedda Mombasa iyadoo ay sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah xiriirka kubadda cagta ee dalkani Kenya waxaana ay ku amaaneen gudoomiyaha haatan loo doortay Somali community ee dhinaca ciyaaraha Abdinaasir Ibrahim Jama inuu yahay nin muddo dheer ka shaqeynaya dhinaca ciyaaraha isla markaana wax badan ka garanaya horumarinta ciyaaraha iyagoo u rajeeyay in uu mideyn doono Soomaalida Kenya ku dhaqan dhinaca ciyaaraha gaar ahaan kubadda cagta. Ni heshima kubwa kwetu sisi viongozi wa kandanda kwamba tumealikwa tuje tujumuike katika sherehe hii ambayo tunamtambua na tunamsherehesha mmoja wetu ambaye amepewa wadhifa wa kuwa kiongozi katika masuala ya michezo katika jamii nzima ya Somali community. Sisi tumpongeza kwa dhati kwa sababu tunajua ya kwamba uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu na watu kumchagua yeye ni lazima waliona kwamba yuwatosha na yuwafaa. Munaasabada ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ah hoggaanka Somali community ee Soomaali goboleedka Mombasa iyadoo uu gudoomiyaha community-ga Soomaalida ee Mombasa Maxamed Ibrahim Xuriye oo isna halkaasi ka hadlayay uu sheegay in uu rajeynayo mudane Abdinaasir Ibrahim Jama oo loo doortay gudoomiyaha sportska ee dalkan Kenya ee Soomaalida in shaqada loo doortay uu si hufan ku gudan doono isla markaana horumarin doono dhalinyarada ciyaaraha haatan ku jirta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. maanta waa maalin weyn waaye waxaa la doortay chairmanka kubadda Mr. Abdinaasir marka alxamdulillaah rabbil caalamiin intii macnaha diintana faraysina physical noqno marka insha Allah taala Abdinaasir certificate-kiisa waa siinay maanta wax kasta waa okay. Macallin Axmed Xuseen Qanyare oo ah gudoomiyaha dhalinyarada sportska ee Soomaalida ku dhaqan magaalada Mombasa ayaa waxa uu sheegay inuu muddo dheer u garanayo Abdinaasir Jama oo uu sheegay in xilkaasi loo doortay uu yahay nin ku haboon. Warahmatullahi wabarakatuh aad u maasantahay walaalkay Bootaan caawa meeshan Nyali waxaan ku dooranay walaalkeen Abdinaasir inuu ahaado gudoomiyaha guud ee sportiga ee Kenya anigoo ah gudoomiyaha sportiga iyo dhalinyarada magaalada Mombasa aad baan ugu faraxsanahay inaan si wanaagsan ula shaqeeyo walaalkayga Abdinaasir Ibrahim Jama aad iyo aad u mahadsantahay dhammaantiin wixii inta ka soo qayb gashay xafladan waxaan mahadcelin celinaynaa gudoomiyaheena Mombasa Maxamed Xuriye Ibrahim waa community jiraan hanay oo wiligood wada shaqeyn jirtay haddana wada shaqeynaynaa dhalinyaradeenna waan garab taagin kabtankayga waa kana kabtanka Mombasa Xasan Bare garabkayga taagan marka wax dhib ma jiro insha Allah taala walaalkeen waxa calaamad saarnaa inuu yahay gudoomiyaha guud ee sportiga Kenya daawadayaal xafladaasi kadib ayaa waxaan kula kulmay isla garoonkan ay ka dhacisay munaasabadani lagu dooranayay gudoomiyaha Somali community dhinaca sportska ee Kenya oo idil iyadoona uu garab taagan yahay gudoomiyaha Somali community ee sportska ee magaalada Mombasa mudane Abdinaasir Ibrahim Jama kusoo dhow waraysigan kooban idaacadda Radio Salam iyo waliba sidoo kale shabakada Bootaan Media bal waxaad naga warantaa xilkan muhiimka ee Soomaalida Kenya ee dhinaca sportska haatan meeshan ay joogeen xubno ka socda KF bal inaga waran waxyaabaha aad ku soo kordhin doontid haddii uu Rabbi subxaanahu wa ta'ala kula garab galo shaqooyinka aad dimacsan tahay. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah insha Allah kullay waxaan isku dadaali doonaa dhalinyarada inaan isu keenno Soomaalida saa u taqaaneen dad waxaan iska nahay gooni goos baan nahay inaan mujtamaca ka qayb galno aan ku soo darno Soomaalida liigi anaga aan leenahay aan sameysano Soomaalida xagga investmentka businesska iyo waxa aad baan ugu fiican nahay say u badan yihiin dhalinyarada maarta noo badan anaga dhalinyarada noogu badan dhalinyaradana waxaan u baahanay inaan soo jiidno aan keenno si aan maarta muxuu ahaa footballka maarta muxuu ahaa iyo sportiga aan ugu soo qayb galno si wanaagsan bal gudoomiyaha guud ee sportska ee Soomaalida Kenya ayaa lagu calaamad saaray oo lagu doortay Soomaalida ku nool magaalooyinka waaweyn marka laga yimaado Nairobi iyo Mombasa waxaa jirta Soomaali badan oo ku nool waqooyi bari ee Kenya marka la eego sida Mandera, Wajir, Garissa iyo waliba sidoo kale xataa xiriyaha qaxootiga marka Soomaali badan ayaa meelahaas dhan ku nool bal
arrimahaasi iyagana si ayaad u gaari doontaa haddii rabbi idmo إن شاء الله waxaan isku dayi doonaa hadduu ilaahay idmo inaan sameyno koob ka dhaxeeya Soomaalida hadday noqoto Ramadaanka ama maarta muxuu ahaa waqti baan qabsan doonaa hadduu ilaahay idmo oo koobkaas oo maarta maalmo gudahood ku dhici doono si aan isugu keenno ummadda mise North Eastern ha joogaan mise meel walba ha joogaan waxaa kaloo jiro oo aan rabaa Soomaalida inaan u bishaareeyo sportiga lacaga badan baa maarta muxuu ahaa maarta in maarta lacaga badan iyo waxa maarta muxuu ahaa sportiga aan u soo qaadno oo Soomaalida aan uga dhigna maarta bal muxuu ahaa ishag inay noqdaan share ay ka noqdaan sportiga hadduu ilaahay idmo waa gartay ka waran bal wasiiradda sportska Kenya oo haweeney Soomaaliya isla markaana inta badan waxaa la tilmaamaa in dadka Soomaalida ay aad uga dambeeyaan qowmiyadaha kale ee sportska marka sida ayaad uga faa'iideysan kartaan muddada hal sano ee barka ka dhiman xilli waqtiyeedka hadda dowladda jirta iyadoona si weyn runtii baahi weyn loo qabo dhinaca sportska إن شاء الله وزيرة waxaan isku dayi doonaa inaan la shaqeyno inaan muxuu ahaa u tagno aan maarta cazulno maadaama ay tahay muxuu ahaa wasiirad Kenyan ay tahay Soomaalina tahay waxaan isku dayi doonaa insha Allah taala bal integration wax la yiraahdo inaan abuurno integration ka bacdina aan ayada maarta muxuu ahaa u sheegno dhibaatada ay baahidan u qabno in dadkeena maarta muxuu ahaa ay xagga sportiga ka yar radan yihiin hadday noqoto rag iyo hadday noqoto dumarba inaan ka radanahay marka si aan dadka ugu soo wada dhaweeyno insha Allah taala ayaan isku dayi doonaa inaan bal isu keenno maarta muxuu ahaa bal muxuu ahaa gaabkaas u dhaxeeyo dadka maarta muxuu sportsmanship ka Soomaalida rasmiga ah iyo maarta dhalinyarada banaanka taagan in aan wada keenno sida ninka walaalkii maarta muxuu chairman ku sameeyay ma sha Allah muddo 15 sano 20 sano ku dhawaan u maleynaya kaliya maarta muxuu ordaayay Mombasa u ordaayay oo meel walba maarta qaraacay albaab walba qaraacay soo dhalinyarada droogada iyo dhibaatooyinka iyo waxyaalo badan oo reebo alxamdulillah maanta muxuu ahaa ninaan ku faanay waa garabkayga taagan way Macallin Ahmed chairman ka muxuu ahaa ishag Mombasa marka waxaan isku dayi doonaa insha Allah taala wada shaqeyn chairman ka Nairobi kan Mombasa kan Garissa inaan wada keenno insha Allah taala aniga maadaama la idorto chairman ka guud waxaan isku dayi doonaa inaan maarta muxuu bal dadka isku keenno insha Allah waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay baaqada ugu dambeeya aad u jeedinaysid dhalinyarada sportska ciyaara wuxuu yahay niyo waxa horta ugu muhiimsan waxa way ragga Soomaalida dad weyn ha aha mise hal weynaado mise la yaraado horta waxa ugu muhiimsan waxa way saliid baan cunaa jirkeenana muxuu ahaa jir sports maaha marka maadaama aan rabno insha Allah taala aan nolol caafimaad inaan rabno waxaan ugu baaqi lahaa maarta sportiga in laga soo qayb galo hatta adoo shaqadaada ku jira businesskaada ku jira inaad sportiga ka soo qayb gasho si aad uga noqoto maarta muxuu ahaa member insha Allah taala aad iyo aad u mahadsan tahay هذا mudan insha Allah ugu dambeyntii isna halkan waxaa nala jooga gudoomiyaha Somali community ee dhinaca sportska magaalada Mombasa Macallin Axmed Xuseen Qanyare isaguna sida aad maqlayseen gudoomiyuhu sheegay muddo 15 sano ku dhow oo u taagnaa sportska Soomaalida ee magaalada Mombasa mudane Axmed bal ku soo dhawow waraysigana kooban bal waxaad inooga warantaa halkan waxaa lagu calaamad saaro lagu doortay gudoomiyaha Somali community ee Kenya dhinaca sportska bal horena xilkaasi uma uusan jirin idinka maadaama aad ahaydeen ama aad tahayba laftigaadu gudoomiyihii ugu xilka dheeraa muddada intaas la soo hayay wax badan ka qabtay sportska magaalada Mombasa maxaad aaminsan tahay in Cabdinaasir waa saaxiibtiin uu Mombasa oo ahayd magaaladii uu ku bartay magaaladii uu ku soo koray uu ka bedeli doono بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أدي هذا وما سنتها بوتان إي راديو سلام إي بوتان ميديا رناتي عاود بفرح سنة هاي ولالكي عبد الناصر إبراهيم جامع oo garabkayga taagan oo wiligiis garab taagnaan jiray inta aniga soo waday gudoomiyaha sportiga ee dhalinyarada Mombasa oo aan caaw u dooranay gudoomiyaha guud ee sportiga ee dalkan Kenya runtii haddii aan ahay gudoomiyaha sportiga iyo dhalinyarada magaalada Mombasa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana garab istaagaya walaalkayga oo inta san garab taagnaa hadeertan wada shaqaynteeni hore in ka badan ayaan wada shaqayn doonaa runtii Cabdinaasir sidoo ka dhawaajiyay 15 sano la soo dhaafay waxaan gudoomiyaha dhalinyarada Mombasa aan wax walba aan u qabanaynay aan tabarteena dhalinyarada aan ka cilinaynay daraagiska liigaga aan furaynay maaragtay wada shaqaynaynay intaas oo dhan aan shaqaynay aniga Cabdinaasir uu garab taagnaa asigoona waxba ahayn markaas oo xubin oo kamid ah community-ga ah caawa oo aan u dooranay gudoomiyaha guud ee maaragtay Kenya runtii waxaan rajaynayaa in macnaha shaqooyinkeena kor noogu sii kici doonto oo garab istaag weyn aan ka heli doono waan inaan aqaano intaas garab taagnaa soo xil haynin hadda anagoo xil u magacaabnana insha Allah taala garab istaag weyn aan ka rajaynayaa ilaahina waa garab gol xilkaas insha Allah shukran aad u mahadsantahay
بسم الله الرحمن الرحيم أنا واسود دويننا قدوميها حلك الله مقعوين وحنا وكل قبلنا وحبنا بكل قبلنا إن شاء الله تعالى آدي نكان مقالة دي سواي آدي بنوسود دويننا دي قدوميها أنا وحنا لنا وحقبضوا عن بالنا هاي إن شاء الله تعالى إله كل قرب قلو وبالله التوفيق garoonkan aan ku suganahay oo ku yaala xaafadda Nyali ee magaalada Mombasa ayaa waxaa halkan lagu doortay gudoomiyaha sportska ee Soomaalida ee dalkan Kenya mudane Cabdinaasir Ibrahim Jaamac iyadoo munaasabadiisa ay ka soo qayb galeen dad badan oo markaasi ka shaqeeya dhinaca ciyaaraha Maxamed Cabdi Bootaan magaalada Mombasa